dagaalkii ugu dambeeyay ee u dhexeeyay Pakistan iyo dalka India badanaa wadamada dunida ku yaal waxay ka qaateen mowqif dhexdhexaad ah balse waxaa jiro laba wadan oo si cad ah u garab istaagay labadan wadan ee daruuraya balse intaan muuqaalka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe ii saartid muuqaalkana aad like gareysid mahadsanid dalka ugu horeeya waa dalka Shiinaha kan kalena waa dalka Faransiiska Shiinaha wuxuu India ugu soo horjeestay waxa u dhexeeyay marin xuduudeed oo u dhexeeya labadan dal balse muxuu Faransiiska ku taageeray India sidaan ognahay Faransiiska iyo dalka India ma ahan laba dal oo daris ah waa laba dal oo aad u kala fog kuna kala yaala laba qaaradood oo kala duwan maxay tahay sababta uu Faransiiska u taageeray dalka India Faransiisku wuxuu xarash hore u hayaa dalka Pakistan arrinkan waxay soo bilaabatay 1958 waagii dalka Algeria uu ku jiray gacanta gumaysiga dalka Faransiiska hogaamiyaha Algeria ee waagaas ee 1958 wuxuu doonayay inuu xornimo buuxda u dalkiisa u soo dhigo wuxuuna rabay inuu ka qudbeeyo golaha qaramada midoobay gumaysiga Faransiiska ayaa si cad u diiday in hogaamiyaha Algeria uu ka hor qudbeeyo golaha qaramada midoobay ee New York balse dalka Pakistan ayaa soo dhaweeyay hogaamiyaha dalka Algeria ayagoo siiyay sharcigooda ama baasaboorkooda taasoo u ogolaanaysa inuu ka hor qudbeeyo golaha qaramada midoobay asigoo matalaya dalka Pakistan wuxuuna ka hor sheegay golaha qaramada midoobay arrinka ka tagan dalkiisa ama dalka Algeria taasoo Algeria u horseeday inay xornimo buuxda ka qaadato dalka Faransiiska kadib dhacdadan dalka Faransiiska wuxuu garab buuxda ama taageero cad u noqday dalka Hindiya asigoo ka soo horjeesanaya dalka Pakistan